waxqabadkaygu horta waxaan ku cadeynay boqolka maalmood soo socda qorshihii aan u gudbiyay baarlamaanka maalmihii la ansixinayay taasna waa ku taaganahay oo waxa ugu horeeya horta ammaanka waxa ku xiga dib u heshiisiinta waxa ku xiga dawlad wanaaga iyo dastuurka inaan sameeyno ama transition task noo haray marka hawlaha amniga oo igu horeyso dawladdu waxay ku khasban tahay inay amniga sugto si ay dawladdu u hesho meel ay ku shaqeyso isla markaasna ay ummadda Soomaaliyeed siiso fursad ay wadankooda ku dhistaan dhaqaalihii ku soo noqdo maxaan ku raahdaa hawlahaas oo dhan haddii aan ammaanka sugnayn dibku wuxuu noqonayaa hadda meel ammaanka meel aan ammaan jirin cid imaanaysa ma jirayso marka dawladda haddaan nahay waxaan ku khasbannahay inaan ammaanka wax weyn ka qabanno taasina waa inaan xaqiiqada ay tahay inaan daryeelno ciidanka aan daryeelka siino daryeelkay u baahan yihiin oo ah in mushaaharadooda caafimaadkooda raashinkay u baahan yihiin iyo daryeelkooda guud inaan sugno waxaan muhiimadda saarnay sidii aan ku soo celin lahayn ciidanka niyaddooda hadda ciidan niyad lahayn kulley ma dagaali karo si aan niyaddooda ku soo celino waa inaan sugno waxay u baahan yihiin ka mid tahay mushaharada waa run muddo badan ma qaadan mushahar shaqadii ugu horreysay aan qabtay waxay ahayd inaan raadiyo mushaharkooda annagu dawladdan waxa ay muhiimaddeeda saaraysaa in ay dawladdan la tartanto dawladaha adduunka ma aha horumar ma aha oo annagu hadda 20 sano aan dib u dhacnay laakiin waxaan kula tartamaynaa inaan noqono dad aan musuqmaasuq ku shaqaynin dad aan ku shaqaynin dad aan qabiil iyo xaqdarro aan ku shaqayn maxaa yeelay 20kii sano oo la soo dhaafay waa ognahay waxa markii la yiri beelo lagu dagaalo ama loo qaybsamo wixii wadanka ay u geystay waa garan karnaa musuqmaasuq wixii wadanka u geysatay 10kii sano khaasatan hadda ugu dambeysay oo ay ka jirtay Soomaaliya dawlad ku meel gaar ah marka annagoo intaas oo dhan eegayna waxaan diyaar u nahay inaan la dagaalno musuqmaasuqa inaan keenno cadaalad inaan dadka u xaq soorno inaan sinaan aan ka shaqeyno iyadoo marnaba aan laga tagaynin sharciyada u degsan axdiga ku meel gaarka ah